ninkan uu sawirkiisa idiin muuqdo waxaa lagu magacaabaa Mustafa. Waxa uu geystay mid ka mid ah dilalkii ugu foosha xumaa ee ka dhaca dalka Masar. Laakiin marka aynu ogaano qaabka dilkaas loo soo qorsheeyay, waxaynu ku tilmaami karnaa mid ka mid ah kuwii ugu dhagarta badnaa abid. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Kusoo dhawaada saaxiibayaal degalkeena Ciid Media. Haddaba inta aynaan qisada bilaabin saaxiibayaal, waxaan idinka codsanaynaa inaad channelka subscribe soo tiraahdaan, fiidiyoogana like saadhaan. Aynu u gudagalno qisadeena caawa. Sanadkii 2021 magaalada Giza ee dalka Masar waxaa ku noolaa wiil dhalinyaro ah oo lagu magacaabo Mustafa. Mustafa da'diisu waxa ay ahayd 20 jir. Waxa uu ahaa arday jaamacadeed, isagoo wax ka baran jiray mid ka mid ah jaamacadaha ku yaala dalka Masar. Mustafa waxaa lagu yaqaanay inuu ahaa arday degan isla markaana dadaal badan. Dhanka kalena waxa uu lahaa hal caado oo fool xun. Caadadaasina waxa ay ahayd inuu habeenkii waqti badan ku qaadan jiray isticmaalka taleefankiisa, isaga oo dhex mushaaxaya baraha bulshada. Haddaba habeenada ka mid ah ayaa codsi saaxiibtinimo waxa uu uga yimi Facebooka. Markii uu furay waxa uu arkay in ay tahay gabar lagu magacaabo Raqad sawiradeedu waxa ay muujinayeen in ay tahay gabar xijaaban, isla markaana boggeeda waxa ka buuxay aayado Qur'aan ah, axaadiis, ducooyin iyo xikmado diini ah. Mustafa wax walba oo uu arkay waxa ay u muujiyeen in ay tahay gabar edeb badan, isla markaana diinteeda ku adag. Kadib Mustafa gabadhii ayaa u diray fariin salaan ah. Muddo yar gudahoodna Raqad waa ay u soo jawaabtay. Halkaasna waxaa ka bilowday wada sheekaysi iyo xiriir dhex maray Mustafa iyo Raqad. Raqad waxa ay Mustafa u sheegtay in ay da'deedu tahay 17 jir, isla markaana ay ku nooshahay magaalada Iskandariya, iyada oo ka dhalatay qoys dhaqaale ahaan wanaagsan. Hadalkeeduna waxa uu ahaa mid degan oo edeb leh, isla markaana kuma jirin wax Mustafa shaki gelinaya. Haddaba habeenkaas markii ay wada hadlayeen muddo dhan 1 saac, ayaa Raqad waxa ay Mustafa ku tiri waxa aan tukanayaa salaatuleyl. Kadibna khadkii ayaa ay xiratay. Hadalkaasina waxa uu kalsooni dheeraad ah ku beeray Mustafa, isaga oo aaminay in uu la kulmay qof diin ahaan iyo akhlaaq ahaanba wanaagsan. Maalinba maalinta ka dambaysa xiriirka Mustafa iyo Raqad u dhaxeeya waa uu sii xoogsanayay, iyaga oo si maalinle ah fariimaha isku dhaafsanayay. Haddaba muddo kadib Raqad maalin ayaa ay ka codsatay Mustafa in ay video call ku wada hadlaan. Mustafana codsigaa waa uu aqbalay, laakiin wicitaankii kadib Raqad kaamiradii ayaa ay dansatay. Mustafa markii uu sababta weydiiyeyna waxa ay u sheegtay in ay xishoonayso, isla markaana aysan awoodin in ay kula hadasho video call, inkastoo iyadoo ay codsatay. Mustafana arrinkaa waa uu oggolaaday isaga oo aan wax shaki ah gelin. Waxa uuna u qaatay astaan muujinaysa xishoodkeeda iyo dhaqankeeda wanaagsan. Haddaba toddobaadyo kadib maalin maalmaha ka mid ah, Mustafa waxa uu jacaylkiisa u sheegtay Raqad. Raqadna waxa ay u sheegtay in ay dareen la mid ah midkaas ay dareemayso. Halkaasna waxaa ka sii socday xiriirkoodii ku dhisnaa in ay dhistaan guur iyo mustaqbal wanaagsan. Mustafa maalin ayaa uu u sheegay inuu u soo safri doono Iskandariya si uu iyada ula kulmo. Raqadna waa ay ka oggolaatay. Laakiin si kadis ah intii Mustafa uu isku diyaarinayay safarka Raqad, ayaa waxa uu waayay kontaktiyadii uu kala xiriiri jiray oo dhan, hadday noqoto WhatsApp, Facebook iyo abiska kale. Mustafa dadaal kasta waa uu sameeyey sidii uu dib ugu soo heli lahaa Raqad, laakiin waa uu ku fashilmay. Haddaba muddo 17 maalmood ah kadib, oo uu Mustafa ku noolaa walaac iyo jahwareer, isaga oo aan garanayn waxa ku dhacay gabadhii uu qalbigiisa oo dhan siiyey, ayaa waxaa si lama filaan ah fariin uga timid Raqad. Waxa ayna u sheegtay in ay ka xuntahay muddadii ay ka maqnayd. Dhanka kalena waxa ay u sheegtay in ay soo martay xaalado adag. Mustafa markiiba waa uu naxay, waxa uuna weydiiyey waxa ku dhacay Raqad. Raqad in muddo ah ayay aamusnayd. Ugu dambeynna waxa ay u sheegtay in aysan garanayn halka ay wax ka bilowdo. Mustafa waxa uu u sheegay inuu diyaar u yahay inuu dhageysto wax walba. Markaas kadib Raqad waxa ay bilowday sheeko murugo leh. Waxa ayna sheegtay in maalin iyada oo kaligeed guriga joogta, qoyskooduna ay suuqa ku maqnaayeen in albaabkii guriga la soo garaacay. Haddaba Raqad markii ay albaabkii furtay waxa ay aragtay nin ay ku sheegtay in uu ahaa aabaheed saaxiibkii. Ninkii gudaha ayaa uu soo galay. Raqadna waxa ay u maleynaysay inuu aabaheed u yimid. Ninkiina marka uu fariistay waxa uu weydiiyey Raqad in uu aaba joogo. Raqadna waxa ay u sheegtay inuu aabaheed maqan yahay. Kadibna jikada ayaa ay gashay si ay ninkii cabitaan ugu soo diyaariso. Ninkiina marka uu ogaaday in ay Raqad kaligeed guriga joogto, waxa uu bilaabay in uu ku hadlo hadallo aan habboonayn, isaga oo Raqad ku cadaadinaya waxyaabo fool xun. Waxa ayna sheegtay in ay isku dayday in ay iska difaacdo, laakiinse waa awoodi weyday. Raqad intii ay hadalka wadatay, Mustafa aad buu u murugooday. Waxa uuna dareemay caro aad u daran. Raqad hadalkii ayaa ay sii wadatay. Waxa ayna sheegtay marka ay qoyskooda ogaadeen waxa ku dhacay, halkii ay cadaalad u raadin lahaayeen ay u guuriyeen ninka falka foosha xun kula kacay. Waxa ayna dhanka kale u sheegtay in ay filayso in xiriirkoodii uu halkaa ku eg yahay. Erayadaasina waxa ay dhaawac u geysteen Mustafa qalbigiisa.
Mustafa in muddo ah ayaa uu aamusnaa sidii qof aamini la waxa ay dhagihiisu maqlayaan. Ugu dambeyntii waxa uu u ballan qaaday inuu garabkeeda istaagi doono isla markaana uusan ka tagi doonin. Raqadna arrinka aad ayay ugu faraxday iyada oo Mustafa u mahadcelisay. Waxa ayna u sheegtay in ay filaysay inuu ka carari doono marka uu maqla xaaladeeda, laakiin taas beddelkeeda uu garabkeeda noqday. Maalmihii xigay Mustafa waxa uu si joogto ah uga fakarayay sidii uu uga argudi lahaa ninkii ay Raqad u sheegtay inuu mustaqbalkeeda burburiyay. Waxa uuna rumaysnaa in fal kasta oo uu ninkaa kula kaco uu yahay difaac iyo garab istaag uu u muujiyay gabadha. Dhanka kalena Raqad waxa ay Mustafa u sheegtay in ay ka guureen magaalada Iskandariya iyaga oo u guuray deegaanka Buxayra, sida awgeedna uu u soo safray deegaanka Buxayra. Mustafana go'aan ayaa uu gaaray. Waxa uuna ka soo safray magaalada Giza isaga oo u soo safray Buxayra. Waxa uuna rumaysnaa inuu u socdo in uu soo badbaadiyo qofkii uu jeclaa. Haddaba xilli habeen ah ayaa uu Mustafa soo gaaray deegaanka Buxayra. Habeenkaasna hotel yar ayaa uu ku hoyday isaga oo sugaya fariinta uga imaan doonta Raqad. Haddaba subaxdii hore isaga oo weli daalan ayaa fariin waxa ay uga timid Raqad. Waxa ayna u soo dirtay ciwaanka gurigeeda iyada oo u sheegtay in marka uu ciwaanka yimaado ay halkaa ku sugan tahay gabar ay habarteed dhashay, taas oo siin doonta furaha guriga iyo mindidii uu falka ku geysan lahaa. Mustafa waa uu soo dhaqaaqay waxa uuna soo gaaray goobtii loo tilmaamay. Markii uu gaaray albaabka guriga waxa uu la kulmay gabar dhalinyaro ah iyada oo u dhiibtay furihii guriga iyo mindi yar. Waxa ayna u sheegtay inuu si degdeg ah howlgalka u soo dhammeeyo. Mustafa waa uu soo dhaqaaqay waxaana maskaxdiisa ka buuxday nacayb iyo argoosi uu u hayay ninka loo soo tilmaamay. Gurigii ayaa uuna soo galay isaga oo si degan u socda. Haddaba qolkii hurdada marka uu soo gaaray ayaa uu arkay nin sariirta jiifa. Daqiiqadaasna waxa ay ahayd daqiiqad aan dib loo soo celin karin. Isaga oo aan waxba hubsan ayaa uuna ninkii mindidii ku bilaabay. Ninkiina waa uu soo toosay isaga oo qaylinaya. Waxa uuna isku dayay inuu isdifaaco, laakiinse awood uma yeelan oo daqiiqado gudahood ayaa uu ku dhintay. Mustafa goobtii ayaa uu si degdeg ah uga baxsaday isaga oo xaalad argagax iyo jahwareer ah dhexda uga jira. Waxa uuna ku laabtay magaaladii Giza. Haddaba muddo yar kadib waxa uu isku dayay inuu la xiriiro Raqad, laakiinse Raqad baraheedii social media oo dhan waa ay ka baloogtay. Dhowr maalmood kadib xilli subax hore ah guriga Mustafa waxaa yimaaday gaari booliis ah, waxaana lagu wargeliyay in Mustafa loo baahan yahay inuu soo raaco booliiska. Mustafana si fudud ayaa uu u raacay maadaama uusan weli fahansanayn waxa dhabta ah ee loo haysto. Markii la geeyay xarunta dimi baarista su'aalo badan ayaa la weydiiyey Mustafa. Markii hore waa uu diiday inuu waxba qirto, laakiin ugu dambeyntii wax walba waa uu qirtay isaga oo weli ku adkaysanaya in uu difaacayay gabar la dulmiyey. Haddaba dambi baarayaashii iyaga oo yaaban ayaa ay is eegeen. Waxayna is weydiiyeen gabadha uu difaacay iyo waxa uu ka hadlayay Mustafa. Haddaba ku soo dhawaada xaqiiqada. Gabadhan waxa lagu magacaabaa Shaymaa, da'deeduna waa 32 jir. Waxaana qabay ninkan oo lagu magacaabo Maxamed, kaas oo ay da'diisu ahayd 35 jir, iyaga oo isqabay muddo gaaraysa 10 sano. Maxamedna waxa uu lahaa shirkad weyn oo iibisa agabka gawaarida sida batariyada, shayga gaariga iyo wixii la midka ah. Waxayna ahaayeen qoys dhaqaale ahaan aad u wanaagsan. Haddaba Maxamed maadaama uu ahaa shakhsi aad u mashquul badan, waqti badan uma aanu heli jirin xaaskiisa. Xaaladuna waxa ay sidaa ku socotay muddo aad u dheer. Haddaba maalin maalmaha ka mid ah Shaymaa waxa ay isbartay nin lagu magacaabo Maxamuud, kaas oo ay waqtigaa da'diisu ahayd 28 jir. Maxamuud waa uu ogaa in gabadhan la qabo, laakiin arrinka waa uu iska indha tiray. Xiriirkooduna waa uu sii xoogsanayay maalinba maalinta ka dambaysa. Haddaba Shaymaa waxaa ku soo dhacday fikrad shaydaannimo ah. Fikraddaasna waa in ay ninkeeda Maxamed dilaan si ay labadoodu isku guursadaan. Maxamuudna arrinka waa uu ku waafaqay. Waxa ayna ka fakareen qaabkii ay u dili lahaayeen Maxamed. Laakiin Shaymaa ayaa soo dejisay qorshe aad u yaab badan, kaasoo ah in ay samaysato Facebook been ah iyada oo ku qoranaysa magaca Raqad. Isla markaana waxa ay ku soo baahisay sawirro aan kuweeda xaqiiqda ahayn oo ay internetka kala soo degtay. Sababta ay arrinka u samaynaysana waxa uu ahaa in gacan ku dhiiglihii Maxamed dili lahaa ay halkaa ka soo dabato. Haddaba Shaymaa dabinkeeda waxaa ku soo dhacay Mustafa. Waxa uuna noqday qofkii ay raadinaysay Shaymaa. Gabadhii uu Mustafa furaha ka qaadanayayna markii uu dilka geysanayay waxa ay ahayd Shaymaa ruuxadkeeda. Mustafana ma aanu garanayn maadaama sawirrada uu arkay aanay ahayn kuwii dhabta ahaa ee Shaymaa. Haddaba aynu dib ugu laabanna subaxdii uu Mustafa dilay Shaymaa ninkeeda. Mustafa markii uu dilka geystay waa uu soo baxay. Waxa uuna ku soo laabtay magaaladiisii Giza. Kadib Shaymaa iyo Maxamuud oo wada socda ayaa yimid meeshii uu dilku ka dhacay.
Maxamuudna waxa uu gacmaha iyo lugaha ka xiray Shaymaa isaga oo madaxana jug yar ka gaarsiiyey. Waxa uuna ahaa qorshe ay labadoodu soo degeen. Haddaba markii ay dhowr saac ka soo wareegtay, Shaymaa aad ayay u qaylisay waxaana isku soo baxay dariskii oo dhan, iyaga oo soo buux dhaafiyey guriga Shaymaa si ay u ogaadaan waxa dhacay. Waxa ayna arkeen Shaymaa oo dhaawac ah iyo ninkeedii oo sariirta saaran isaga oo meyd ah. Dadkiina waxa ay la xiriireen laamihii amniga. Shaymaana hosbitaalka ayaa loola cararay. Booliiskii waxa ay bilaabeen baaritaankoodii. Qofkii ugu horreeyay ee ay su'aalaha weydiiyaanna waxa uu noqday Shaymaa. Shaymaana waxa ay sheegtay in iyada iyo ninkeeda oo wada hurda ay u soo galeen 2 nin, isla markaana ay nimankii toorey la dhaceen ninkeeda, iyaga oo dhanka kalena gacmaha iyo lugaha ka xiray Shaymaa. Ugu dambeyntiina waxa ay sheegtay in ay goobta ka baxsadeen. Haddaba booliiskii waxa ay baaritaan ku sameeyeen kaamiradihii guriga ku xirnaa. Waxa ayna arkeen inuu guriga soo galay wiil dhalinyaro ah. Muddo yar oo uu guriga ku jirayna uu iskaga baxay isaga oo midna gacanta ku wata. Dhanka kalena booliisku waxa ay baaritaan ku sameeyeen moobilkii Shaymaa. Waxa ayna halkaa ka heleen ciwaan Facebook ah. Markii ay ciwaankii gudaha u galeenna waxa ay ogaadeen xaqiiqadii oo dhan, iyaga oo halkaa ka helay wax walba oo dhex maray Mustafa iyo Shaymaa. Sidoo kalena waxa ay ogaadeen in Mustafa uu yahay qof la shirqoolay, isaga oo dabin loo dhigay ku dhacay. Mustafana waxa uu ogaaday in aysan jirin qof la dhaho Raqad, iyo inuu ku dhacay dabin aad u xun oo loo dhigay. Haddaba booliiskii waxa ay soo qabteen Shaymaa. Waxa ayna soo hordhigeen cadaymihii. Shaymaana waxa ay bilowday inay isdifaacdo, laakiin ugu dambeyntii wax walba waa ay qiratay, iyada oo dhanka kalena sheegtay in Maxamuud uu kiiska qaybtiisa ku lahaa. Halkaasna waxa ay dowladdii Shaymaa ku xukuntay xukun dil ah, halka Maxamuud iyo Mustafa lagu xukumay xabsi daa'im. Haddaba saaxiibayaal aad baad u mahadsantihiin. Qisadeena caawana halkaas ayay noogu egtahay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.